السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته tawadaha qiimaha badan oo kulanti waxaana wanaagsan halka igala socoto waa kamid koorsooyinka firiga ah waxaan ku jirnaa barashada Adobe Illustrator muuqaalkani waxaan ku baran doonaa go'aankii sida aad u kala qoran lahayd Adobe Illustrator oo kale runtii waxaan kula wadaagi doonaa farsamo muhiim ah oo aad u isticmaali karto application kasta oo kaa xirma mararka qaar waxaa dhici karta application inuu kaa xirmo oo uu kaa diido inaad dhinac u dhaqaajiso kale iyadoo kula wadaagi doonaa intaan muuqaalka tawadaha qiimaha badan fadlan muuqaalka subscribe saar leegtan si raaci marka aad isticmaalayso Adobe Illustrator oo doonayso inaad xirto oo kala qoriso Adobe Illustrator saddex wada ayaad marka dhaco midda koobaad inaad ku dhufato halka ay ku qoran tahay plus ama close ku dhufato kale wadada labaad inaad tagto file halkan ka xulato text qabato control and q saddexda wada ayaad marka dhaco kale inaad qabato control q iyo plus taas iyo file aad tagto kale wadada muhiimka ah oo doonayna kula wadaaga waxa weeye marka uu ka diido inuu ka xirmo oo kugu adkaado oo dhinaca uu diido waxaad tagaysaa meesha Windows loo yaqaano hadda isticmaalso Windows 11 iyo hadda isticmaalso Windows 10 ba isku mid ah Windows 11 waxaa leedahay right click dadka ma tiraahdo ka xulsa task view markaad doorato application aan diiday inuu xirmo kale aad saarno kale kaas ayaan click siinaya halkan waxaan ka xulanayaa end disk khasab baa lagu xirayaa diido kale marka tawadaha qiimaha badan waxa filay wad fahantay application ka diida halkan ka dooro marka ka dooro sidna end disk ka sii dooro qaabkaas ayuu ku soo xirmi doonaa ord buu ku bixi doonaa ee weynaydankiis qaabkaas waa qaabka loo xiro marka aad joogtid Windows 11 Windows 10 halkan ayaad tagaysaa radkiis oranaysaa sidoo marka tiraahdo halkan waxa ka xunaysaa task manager marka labada wado waa isticmaali kartaa labada version Windows 10 iyo Windows 11 ba marka saddex wada ku xiri kara midna ay ugu muhiimsan dawladaha qiimaha badan oo meesha joogtaan soo dhawaada mar kale channelkeena ka barfay